dhammaan soo qaybgalayaasha sharafta leh sida qiimaha badan ay noogu soo ajiibeen noogana soo qaybgaleen xafladeena aadka u qiimaha badan iyo maalinteena nooga duwan maalmaha kale ustaad maxamed yare si gaar ugu fadhiinaya magacadiisa ma dhammaanayso bilowga ama ustaadka waxa waaye qiimaha waxbarashada ay leedahay qof walba isagoo og haddana markii adoo u baahan ama baahi ay ku hayso waxbarashada qayb ay ka rabto marka ay hayso qofkii ugu qiimaha badnaa ee ku geeni lahaa markaa gacanta ku dhigto way ka qiimo badan tahay xirfadda horta iskiilka wax badan intii wax la baranayay iskuulla waa lasoo dhigtay computer waa lasoo dhigtay anoo xoogaa iska roon waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo qaabkii aan ku galay macnaha iskuulka iyo wixii aan ka faa'iiday wax yar inkasta waqtigan kooban yahay oo dadkuna ay badan yihiin anoo isku jooga waxaan shaqo ka helay NGO markaan shaqada ka helay waxaa ii dhigtay qaabkii aan dadkii aan wax u qabanaya u diyaarin lahaa barnaamijkooda u diyaarin lahaa isaan u samayn lahaa ninaan saaxiibanaa marka laga tilmaamay ninkii aan raadiyey oo u tegey raaditaankiisa horta waqti badan iga qaadatay inaan raadiyo ninkii aan helo waa ishelay markii dambe markaan ishelay maxaa yeelay saasaan rabaa barnaamij inaa iga caawisaan rabaa waa kaa caawinaa wuu iska kayda wareejiye wax badan aad u raadiye wax badan iska kayda wareejiye waa dib kadib waxaan u ogolaaday mushaarkii aan qaadan rabay haafkiis inaan siiyo si aan u helo waxaan shaqadan qabitaankeeda inaan qabsado barnaamijkii markii dambe waa igu dhibtooday anoo iska dhiban waxooga culayskii qabo alsaac kariim waa isaga macallimiinteedii ka mid ahaa ustaadka marna awowgay waaye dhinaca waxbarashada marna macallinkeyga horta ustaad cabdikariim aad u mahad celinayaa ardaydiisa ka mid ahaa marka waa u sheegay maxaa ustaad ninkaas haysta wuxuu yidhi xagga talaa barashada camar soo fiir ustaadku waa is aragnay si qiimo badan waxa ugu weyn iskuulka waqtiga wuxuu ahaa horta excel aan raadinayo baahiya igeys markaas ustaadku markuu i arkay oo xaaladda ugu sheekay wuxuu yidhi excel hadda raadinayna wax ku fiican ina duntaay waqtigan waa igu xumaa shaqada markaas arna macalinka dib waa soo aragna macalin waxaa waqti ma hayso xisad habeen aad ugu mahadcelina si gaar mahadcelintiis ma dhammaanaysa macalinka saa ii sheegay xilli habeen markaa shaqada ka soo baxday imowda anigoo gruub ahaa habeenkii sida ku galna meesha alxamdulilah jaamkii ii haystay shaqadayda aad ugu fudaatay xaqiiqii markaan ka hadlay si fiican weliba waqti kooban inta ku qabsado danahayga magaalada soo qabso aan hawsheeda dhamaysanaa talaa barusina kule marka waxaan jeclahay oon idiin sheegaa inaan ahay mid ka mid xeedadeeda oo aan u mahad celinayo ustaad cabdikariim oo tilmaanta fiican soo siiyey ustaad maxamed yare oo isagana ka mid ahaa macallimiinteeda gaarka ahaa xirfaddana waxay ka muhiimsan tahay wax walba oo soo barto sida caadiga marka wax gacanta la gasho way ka fiican tahay marka lagu akhriyo faculi inta adoo dabaal lagu sharxay afar saan loo daba saa gacanta la tuura inta laga baxaa badda marka lagu yeelay shaqo maqan gawa markii laakiin xirfadda lagu qoro gacanka qabashada way ka qiimo badan tahay cilmiyada kale ustaad maxamed yare iyo ardayda aan isku gruubka nahay ee aad u faraha badan ee quruxda badan xirfaddan qiimaheeda maanta ayaga loo soo diyaariyo waa u mahad celinayaa intaas waa mahad celintii waxaan kaloo rabaa wax yar inkasta waqtigu kooban yahay bangiyada iyo shirkadaha ka soo qaybgala meesha bangi walbo wax soo saarkiisii iyo waxtarkiisii iyo wuxuu nooga sheekeeyey macnaha wuxuu ahaay anoo ku hadlaya magaca ardayda waxaan leeyahay bangiyada meeshaan ka ugaarsada wax badan dad aan jeci doona ku jiro qaybta ugaarsiga dib ha loogu soo noqo waana mahadsantihi insha allah